Kusimaha safiirka Soomaaliya ee dalkani Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta safaaradda Soomaaliya ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu hambalyo u diray madaxda ugu sarreysa dalka iyo waliba shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan. Hambalyadan oo ku aadan munaasabadda kowda Luulyo oo ku beegan xilligii labadii gobol ee Soomaalida ay midoobeen isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay iska dulqaadeen xeriyada gumaysiga. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadda sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay maalintii xornimada ama maalintii ay xoroobeen ay isku darsameen oo ay midoobeen labada gobol ee Soomaaliya. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ugu horeyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre iyo golahiisa wasiirada oo aan waliba ugu hambalyeynaya guulaha lama ilaabaanka ay ka soo hooyeen dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalahaba. waxaan kala jecelahay halkan inaan hambalyo uga jeediyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo aan waliba ku boorinayo inay midnimada ilaaliyaan oo ay ahaadaan dad isku duuban. waayo isku duubnidu waa muhiim. 4 markaad tihiin 5 ayaa idinka xoog badan, 5 markaan tihiin 10 ayaa idinka xoog badan. marka isku duubnida iyo wada jirka in la ilaaliyo. waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa ama aan uga tacsiyeynayaa oo aan u duceynaynaa dhammaan halgamayaashii u soo halgamay inay xornimada timaado. xornimada aan maanta harsanayno ma ahan mid ku timid dheeldheel isaga timid ma ahan. wixii dhintana Allah u naxariisto, inta noolna Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer Allah siiyo. waxaa sidoo kale ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed caalamka ku nool inay iska dulqaataan muddooyinka lagu guda jiro xaaladaha kala duwan ee uu sababay xanuunka coronavirus kaasoo inta badan kala xayilay guud ahaan howlihii dhaqdhaqaaqa socdaallada ay inta badan safaaradda Soomaaliya qaban jirtay. laga bilaabo 17 Maarso adduunka dhan waa uu xirmay. safaaraddu howlihii ay qaban jirtay ay dadka ku caawin jirtay oo u badnay socdaalka iyo dokumentiga intiba corona awgiis ayay u xirmeen. waxaan rajaynaynaa qof kasta oo Soomaaliya halka uu joogo inuu maaragtay ku nagaado inta xaaladdu ay isbedelayso, raallina ay naga noqdaan dib u dhacaas ku yimid dokumentiyadii iyo shaqadii safaaradda ka socon jirtay. dhinaca kale aanoo ka faa'iideysanaya fursaddan qiimaha badan, waxaan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ra'iisul wasaaraha iyo dowladdiisa iyo shacbiga Jabuuti 43 guuradii ka soo wareegtay calanka reer Jabuuti. sabarka 12 habeenimo ayay ku beegan tahay kowda Luulyo dabaaldegeeda iyadoo diyaargarow xoogan oo ka soconayo guud ahaan caalamka. dadka Soomaaliyeedna ay u diyaargaroobayaan sidii ay munaasabadaasi si weyn ugu dabaaldegi lahaayeen. Mikael Cabdirashiid Bare, Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.